barakaatu kusoo dhawaada walaalayaal jankiin waxba crypto maanta insha Allah waxaan hayaa 14 cumladood iyo 7 mashaariic oo kala duwan oo ay ku dul dhisan yihiin amba fikradooda guud aan ka wada hadli doono biidnillah taala maanta waxaan ka codsanayaa haddaad nagu cusub tahay si aanay content kan oo kale aan ku dhaafin subscribe iyo like channelka noo saara asxaabtana la share garee si ay insha Allah uga faa'iidaan fursadaha caalamka cryptaha ku soo socda taasoo biidnillah ugu yaraan waxaan u malaynayaa coinankaasi inay 10x amba 15x ay samayn doonaan mustaqbalka dhow asxaabta cidii danaynaysa inay koorsiga ka qayb qaadato bisha 8aad biidnillah taala oo khamiisan weekan insha Allah taala noo bilaabmaya waxaan uga codsan lahaa registrationka wali waa free yahay waad la soo xiriiri kartaan telegramka la soo xiriiri kartaan faahfaahin haddaad doonaysaanna waxaad daawan kartaan videogii aan ka sameeyey koorsiga waxba ayaan hadalka inagu badin ku soo dhawaada xalqadda aynu bilowno haddaynu coin market capka aynu eegno inta category amba inta project oo ay u kala farcamaan cryptocurrency-gu waxaynu arkaynaa halkan ugu dambaysa haddaynu degno inay 161 mashruuc oo kala duwan inay jiraan oo coinankaasi ay ku dul dhisan yihiin 20,500 ee coin marka maanta waxaan doonayaa inaan soo qaato top 7 projects insha Allah 14 coin oo 7 projecti u kala qaybsan ayaan doonayaa inaan la share gareeyo taasoo aynu eegayno meelihii ugu sareysay ay gaareen maadaama imika ugu yaraan ay soo daateen 90% ilaa 98% waana fursad haddaba number 1 waxaan soo qaatay smart contractsna waxaa albaabka u furtay Ethereum taasoo ah iyadu mother of cryptocurrency waayo 20,000 ee coin waxay ka farcameen amba lagu dul dhisay badinkood Ethereum-ka haddaad jeceshahay inaad waxaad ka ogaatid blockchain-ka iyo qaabyada kala duwan ee blockchain-ka uu leeyahay 2 video baan ka sameeyey channelka dib u raaci kartaa wad daawan kartaa marka smart contract waxaan ka dooranayaa insha Allah Ethereum haddaynu eegno all time-kii haddaynu tagno waxaanu arkaynaa inuu ku dhadhawaaday Ethereum-ku $5,000 maantana waad arkaysaan intuu joogo wuxuu joogaa wax ku dhow 1,700 iyo jajab marka waad dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya 5,000 iyo 1,700 waxaana la sheegayaa bitcoin-ku hadduu mustaqbalka dhow uu 100,000 uu gaadho Ethereum-ku easily wuxuu gaari karaa 10,000 ilaa $15,000 marka waa investment aad iyo aad u wanaagsan Ethereum-ku maadaama uu yahay second largest coin 19% lacagta guud ee suuqa ku jirtaana waxay ku jirtaa Ethereum-ka marka waa coin aad iyo aad u wanaagsan oo mustaqbal leh oo $10,000 gaari kara mustaqbalka dhow coinka labaad haddaynu eegno waxa weeye Cardano wada ogtihiin smart contracts ku shaqeeya baryaha dhaweydna wuxuu ku soo kordhiyey ecosystemkiisa amba blockchain-kiisa waxyaabo aad iyo aad u fara badan all time intuu gaaray wuxuu almost u ahaa $3 maantana $0.5 buu marayaa waad dareemi kartaan farqiga u dhaxeeya $3 iyo $0.5 waana very good investment Cardano coinka kale in dul istaagina maanta waxa weeye Polkadot hadda jeer waxa lagu qiyaasaa amba lagu tilmaamaa inuu yahay cheaper Ethereum amba Ethereum-ka jaban Ethereum-ku wuxuu qabto kale ayuu coinkan u qabtaasna marka waa alternative amba waa khiyaar wanaagsan haddaanu qofku kari karayn inuu iibsado Ethereum amba Polkadot haddaynu soo degno meeshii ugu sareysay uu gaadhay waxay ahayd $54 maantana wuxuu marayaa wax ku dhow $9 oo 24 saac ugu dambeeyay waxaanu arkaynaa inuu sarkac sameeyay 2% marka waa coin aad iyo aad u wanaagsan asna wixii laga qaadan karo waxa laga qaato waana smart contract haddaad isiisaan 10 second waxaan doonayaa fariin aad iyo aad u muhiima inaan halkan inaga sheego walaalayaal had iyo jeer iska ilaaliya qofku doona ha ahaado ee YouTube-ka aad ka daawanaysaan hadduu yahay Soomaali hadduu yahay qof Carabi hadduu yahay qof Ingiriisa qof walba agenda khaas ayuu leeyahay cidna ka dhigaysanina research-kiina khaaska ininku iyo waxaad ku qanacdaan ee caqligiina gala oo lacag macquul ah aad ku invest gareyn kartid weliga ku invest garee majaalka khaasatan cryptocurrency-ga laana khatartiisa badan sidii Terra Luna xalqadii hore ee top 5ka waan kaga hadlay subhanallah imakana waa ka basbeelay marka isku halaynina coinanka waxani maanta way joogaan bari way baabi karaan xitaa bitcoin-ka ayaa hawada ka bixi kara mar quraata oo basbeeli kara marka taasina waa digniin marka mar walba investment aad ku sameynaysan speculative market kan khaasatan ee cryptocurrency-ga ah mar walba lacag aad ka maarantid la samaxallah haday wax dhacaan sida ku sheegay waliba sideeda qalad ee dadka cusub amba dadka cryptada ku cusub ay galaan taasina waa iga dardaaran xitaa aniga iga dhageysanina waxba waa
daacadnimo insha allah. taana waxaan rajaynayaa inay dadka maaragtay maskaxdooda iyo dee qaabkay wax u baaraan inuu furanto oo biidni illah tacaala ay noqdaan dad maaragtay iyagu isku filan oo wax kala saari kara amba maaragtay projectigooda iyagu kala xalili kara ee kala dooran kara kuwa wanaagsan iyo kuwa xun. majmuucada kale ee coinankana waxa weeye transfer coins. markaa waxay sahlayaan kuwani camaliyadaha xawaaladaha oo taasoo shaqadii baananku ay qabanayeen eewa qabanaya. coinankana waxa ka mid a ma doonaya in videogan aan ku dheeraado insha allah, markiiba waynu dul istaagaynaa oo waynu ka dhamaynaa insha allah. coinanka waxaa ka mid a XRP sida daragtaan. XRP berigii hore 2017kii waxay gaadhay $3 iyo dheeraad, inkastoo sanadkan buuranku marku jiray aanay sarakac waalan aanay samayn sidii loo malaynayay. taana waad iska ogtiin oo qadiyado fara badan SES-ka maraykanka ayay is haysteen. iminkana waxaad moodaa inay qadiyada iyo mawduucaasi uu soo gabagaboobayo. marka insha allah tacaala XRP indhaha lagu hayo, waana very good coin. intaasoo sannadoba suuqa joogtay imanka waanay wacantay qofku inuu wax ka xaabsado. coinka kale aan doonaya in nagala hadlana waxa weeye quant amba QNT. waa coin aad iyo aad u wacan saraxatan. ayaanti dhaweed uu suuqu soo daatay, wuxuu soo gaadhay $40. maantana weyninka arkaa wuxuu marayaa 127%. sarakac waalan buu sameeyey oo ku dhow 100 iyo dheeraad. marka qofkii 40 ka qaadan lahaa maasha allah maanta profit wanaagsan ayuu haysan lahaa. quant waxay doonayaan inay XRP ay la tartamaan qaabkay u shaqaynayaan, waana transfers amba waxa loo yaqaano blockchain termka marka laga hadlayo la yidhaahdo ledger. marka qaybta ledgerka ay doonayaan inay dominate ku noqdaan amba haymanada iyago ay qaataan suuqa. arrinta kale aad iyo aad aan u jeclaaday quantna waxa weeye supplyga iyo totalka ayaa isleeg oo waaba typical. inta coin loogu talagalay in la sameeyey iyo inta suuqa wareegaysa kulligood waxay isku yihiin wax gaadhaya 14 milyan iyo 600 iyo jajab. marka waa coin aad iyo aad u wanaagsan. predictionka loo malaynaya inay gaari karto coinkan waxa weeye $1 iyo dheeraad. marka $1 iyo dheeraad waa arrin aad iyo aad u sahlan. waxay u baahantahay market capkeedu inuu noqdo 10 bilyan si uu halkani maaragtay 10x u noqdo at least. marka waa coin aad iyo aad u wanaagsan. researchkiina ku sameeya coinkan. aad iyo aad baad u mahadsantiin khiyaarta sida sharafta badan aad ula socotaan barnaamijka. qaybtii hore intaasoo kusoo gabagabeynaya biidni illah tacaala. coinaka iyo mashaariicda intooda kalena insha allah 2 qaybood oo kale ayaan doonaya inaan ka sameeyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.